haddii kasi sama wado sifaha way aragastaan sooyaalka ka muuqda wacan ina tahay waa la saxay ina tahay waa la saxay dhammaantiin basharaf baa leediin waxaan maqlay madmadow yar baa qolo ay soo daadisay soo yara dhex galay laakiin waxba kama jiraan bishiina waan qaataa toos baan u qaataa ballantii kale la ii qaadina qarkay saaran tahay markaa waar dee ooyi doono waa yar joog waar kuwaana daba socsocdow ee adeeroyaan jar idinka tallaabsanidhe annagu daba daalina ayaan leehay markaa adeero halkaa jannooyinka wanaagsan baan idinku duceeyey shaqooyin barakalaan idinku duceeyey cis iyo caafimaad ku daaqa dalkiinna iyo dantiinna iyo dadkiinnaba allah idin barakeeyo maxamed xaashi qowdhan annagaa saaka halkan ku soo booqannay si uu ummadda ugu iftiimiyo wixii ay dawladda hoose u ballanqaaday iyo waxay la qabatay ilaahay cimriga ha u dheereeyo ilaahay ha daayo waa 120 jir ummaddiisan u hagar baxay oo runtii taariikhda Soomaaliland baaldahaba kaga yaala 50 sannadood buu wadday hagaajinayay 30 sano ku dhawaadka dalka lagu jiray iyo 20 sano ka horreeyay ayuu wadooyinka Hargeysa maalinba mid saaray markii ugu horreysay dawladda Soomaaliland gaar ahaan maayarka caasimaddu waa markii ugu horreysay ee maxamed xaashi qowdhan inta la xuso loo qoro mushahar bishii labaad uu qaatay falilaahi alxamd waan u soconayaa inta uu madaxiisu runtii uu nool yahay waxa kaloo maayarku ballan qaaday in ummadda la horkeeni doono lana abaalmarin doono oo wixii uu mutaystay ummadda horteeda lagu maamuusi doono waxaad ka warqabtaan habeenkii dhaweeyay shaqaalaha dawladda hoose la maamusay in maayarka caasimaddu goobta ka sheegay in muwaadiniinta reer Hargeysa hadday tahay kombaniyadii iyo dadkii wax la qabtayba qof kasta degmadiisii lagu abaalmarin doono maadaama hal goob 100 shaqaalaha 100 muwaadin 100 kombani aan meel lagu wada abaalmarin karin waxa loo jajibiyay degmo kasta kombaniyadii la shaqeeyay muwaadiniintii la shaqeysay in halkooga lagu maamuso madaxduna ay ugu timaado gudoomiye kastaana maalin uu qabsado maxamed xaashi wuxuu ka mid yahay dadka degmada Ibrahim Koodbuur oo gudoomiyaheedii hor joogo lagu abaalmarin doono qodobka saddexaad wuxuu ahaa in muwaadin reer Soomaaliland Cabdilaahi Ciro uu isna dhul ku deeqay dawladda oo Hargeysa ay dhismaheeda iyaduna halka ku ballan qaaday arinta dhulkana